reer gabiley musharaxa madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga odayaasha reer gabiley halkan jooga ee cali gure ka mid yahay ismaaciil aadan ka mid yahay cabdalle ka mid yahay xamarji ka mid yahay reer gabiley malaha ma oga xisbiga yaasin ka mid yahay xisbiga wadani laba gudoomiye ku xigeen ayaa ku leeyahay marka laga yimaado golayaasha dhexe marka laga yimaado xogeeyaasha mid waa goodo imika halkan ka hadlayay ya axmed cumar xamarji dadku waa inuu shaqaano waxa uu ku leeyahay haddii aad soo heshaan laba degmo oo kale oo deentaa ku leh halaynala tartamo xisbi waa xisbi aynu leenahay 2012 markii xisbigu soo baxayay ee uu noqonayay ururka ahaa uu xisbiga u soo baxayay waxaan isleeyahay xildhibaanadii shanta ahaa ee degmada gabiley ka soo baxay haddaanay ku jirin xisbigu ma soo gudbeen marxaladda uu xisbiga ku noqday taasi waxay sheegaysaa in gabiley iyo codkii uu siiyey 2012 xisbiga ay siisay uu xisbigu ururkii wadani uu xisbi ku noqday 2012 golayaasha dhexe dad badan baynu ku leenahay xogeeyaasha waxaan malaynayaa iyagana 4 ama 3 baynu ku leenahay xogeeyaanada marka la isku wada daro kulmiyo 2 goor ay reer gabiley u codeeyeen u malayn maayo inuu matalaad inta leeg iyo kuraasta inta leeg xisbiga ka siiyay marka koowaad horta waxaan u yar kacay inaan inta idin la wadaago xisbiga waa xisbigeeni